بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kasta oo muuqayagu idinka soo gaariyo kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan waraysi kula yeelanay dhinacyo badan taabanaya wasiirka wasaaradda dhaqanka diinta iyo arrimaha awqaafta ee Jamhuuriyadda Djibouti, His Excellency Dr. Aadan Xasan Aadan, oo waraysigaasi oo taaban doona dhinacyo badan oo ay ka mid tahay arrimaha diinta, dhaqanka, af Soomaaliga iyo waliba socdaaladii kala duwanaa ee intii xilka uu hayay oo ku soo maray caalamka. bal marka hore waxaan jecelahay su'aasha koobaad aan weydiinayna in noqoto in uu wasiirku nooga warbixin guud naga siiyo wasaaradda diinta, dhaqanka iyo awqaafta ee Jamhuuriyadda Djibouti iyo waxa ay qabato guud ahaanba. Bismillahir Rahmanir Rahim. Maxamed aad baad u mahadsantahay. Horta haddaan soo noqdo su'aashaadii ahayd wasaaradda dhaqanka iyo arrimaha diinta iyo sida la iskugu dhafay iyo ama ay u wada socdaan labadaasi arrimood. waxa weeyaan dhaqankeena iyo diinteenu waxaan u aaminsanahay horta inay wax ku dhahaatay yihiin. markii la isku darayna waxa laga dhaqaaqay ama madaxweynuhu uu ka dhaqaaqay fikradda ah in dhaqanka aan leenahay Djibouti ahaan ama Soomaalidu ay nala wadaagto in uu yahay dhaqan ka soo jeeda diinta Islaamka. marka waxay ku culoobaan ama ay ku kala duwan yihiin inaanay jirin. waa run oo dadku aad bay ula yaabaan sidee wasaaradda dhaqanka iyo u kulma wasaaradda arrimaha diinta oo ay wada noqon karaan wax meel qurahaati laga maamulo. ayaamihii ugu horeeyay ee shaqadaas aan qabanay ama magaca wasaaraddu uu soo ifbaxayna dad badan oo aan fahanka ballaaran lahayn magacaan badan bay noo baxsheen oo wasaaradda maaritaana danska iyo diinta iyo iyagoo ay ula muuqato dhaqanku inuu yahay un maaritaana qobka ciyaar. kolka taasi waa fahankii qaldanaa, laakiin waxaan ogaanay mararka aan tegno shirarka adduunka dunida carabta iyo dunida muslimka ee ay ogaadaan in ay labadaas wasaaradood Djibouti israacisay, dadku aad bay ula yaabaan maskaxda iyo fikradda ka dambeysay. waxay dhahdaan aad iyo aad baad nooga horeysaan, waayo waxay inta badan la israaciyaa wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka ayaa la yiraahdaa. warfaafinta iyo guud ahaan meediyaha waa wax u baahan in aan joogsanayn oo maalin walba isbedelaya oo socda, halka dhaqankuna uu uga baahan yahay ilaalin iyo dhowris iyo in la ilaaliyo wixii soo jireen ka ahaa. marka waa laba inta badan aanan isqaban oo cilaaqaad toos aan lahayn, laakiin dhaqankeena anaga waa diinteenuna waa dhaqankeena, waxaan ku dhaqanahay waa iyada. kolka fikirka iyo falsafada ka dambaysa horta isku darka labadaasi arrimood waa taas weeyaan. waxaanad moodaa maalin ka dambaysa inay dadku aad u soo fahmayaan oo ay noqotay wax iska kolkii la arki waayay wax fool xun oo ceeb ah oo meesha ku jira. aad baa runtii hadda loola qabsaday. ha ahaato wasaarad qurahaatay, laakiin waxay leedahay laba waaxood oo aad u weyn. waaxidii waa tii noqon lahayd wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta, waaxda kalena waxa weeyaan waa tii noqonaysay wasaaradda dhaqanka. kolka labadaasi qaybood oo runtii mid walba ay culayskeega leedahay, mid walba ay wadato dadkeegii iyo laamihii ay ka koobnayd ay leedahay. ilaahay mahadii waxaan aaminsanahay in si wanaagsan ay u wada dhaqaaqeen, tartan iyo au ka dhaxeeyo isla shaqayn dhow, isbarteenna labadii ummadood ama labadii dad ee qaybahaasi ka kala shaqaynaya isbarteen, haddii ay wadaada ahaayeen iyo culumo, haddii ay ahaayeen maartaan qorayaal iyo aqoon-yahan, haddii ahaayeen fanaaniin, haddii ahaayeen farshaxan. waa la isbartay oo qolobada kale wixii ay ka kororsanaysa ka faa'iideysanayso ayay ka faa'iideysataa. shaqooyin wadajir ahna way wada qabtaan. waxaan aaminsanahay in runtii wax lagu guuleystay uu fikirkaasi yahay, laguna dayan karo oo dunida kale ay naga dayan karto. waayo
tadarufka inta badan dhaca fikirka maaragtaan dadka xag jirnimada ku dhacday waxay ka timaadaa diinta oo dadku ay noloshaba ka saaraan ama dhaqanka ka saaraan iyo dhaqanka oo loo sawiro wax xun oo bulshadu in badan ay ceebayso haddana aan laga maarmin oo goor walba loo baahan yahay kolka dhaqankii oo lagu soo koobo meedaan aad u yar oo ah in heesta iyo maaragtaan qoobka ciyaar waxyaalahaas oo dhan inaan ka saarno sawirka foosha xun leh oo aan sawirka ballaaran ee runta ah ee dhaqanku uu yahay inuu aqoon yahay inuu nolol yahay inuu yahay curin iyo wax soo saar iyo hal abuurnimo taas macnaha ballaaran ayay tahay in la qaato taana haba yaraatee ay diinta iskama hor imanayaan watay dhinaca tusaalahaan kale dhaqanka maxaa idinka qabsoomay ka wasaaradaha wallaahi waa su'aal wanaagsan hadda wixii ka horeeyay dhaqanku wasaaradda kale ayuu ku xidhnaa oo waagii hore wuxuu ku xidhnaan jiray wasaaradda dhalinyarada iyo isboortiga markii dambena wasaaradda warfaafinta iyo isgaadhsiinta ayuu ku xidhnaan jiray kolka inta badan waa laga mashquuli jiray oo activitieska ama maaragtaane howlaha kale ee wasaaradaha maaragtaane ay dhaqanku raacsanaa ayaa inta badan lagu mashquuli jiray laakiin anagu hadda waxaan siinay priority-ga ma isaga ayaan mudnaanta siinay waxaanan u siinay kaalintiisii oo inta badan maqnayd ayaan u siinay guud ahaan dhaqanku wuxuu leeyahay kaabayaal buu leeyahay kaabayaashaas oo uu ku taagan yahay oo haddii la waayo la odhanaynin meeshaasi dhaqan dhowris ayaa ka jirta waxyaalahaasi kaabayaasha ah oo madaxweynuhu markii aan xilka uu noo dhiibay uu nagu dardaaray in la helo oo loo guntado loo halgamo waxaa ka mid ah in waddanku yeesho wax la dhahdo national library amase maaragtaan xaruntii akhriska iyo qaranka in la helo in la helo national archive in la sameeyo iyo national museum in la helo national theatre xarumahaas afarta ah iyo kuwo kaloo lamid ah ayaa waxay sal u yihiin ama asaas u yihiin dhaqanka laga hadlayo haddaba anagu inta badan waxaan isnidhi bal aynu mudnaanta siino inagoona ka tegaynin howlihii dhaqanka ee caadi ahaan socday ee sii jiray ee la qabanayay afartaa shay dadaalkoogii ayaan dee ku jirnaa ilaahay mahadii xeerashii lagu aasaasayay waa u dhammaynay oo maanta mid walba maaragtaane waa sharciyeysan tahay in la jirsiiyo xeer ahaan way u qoran tahay waan samaynay waxaa hadda bilahan hadda aan joogno bilaabmay dhismihii laba xarumood oo aada u waaweyn oo midna ay tahay national library midna ay tahay archive national labadaas xarumood oo isbarbar ah waxaa laga dhisi doonaa jaamacadda Jabuuti horteeda oo si ay ugu dhawaato ardaydii jaamacaddana si ay ugu dhawaato halkaas ayaa dhul laga siiyey markaa dhismihiina dhawaan ayuu bilaabmaya xarunta kale saddexaad waxa weeyaan museumkii waxa ay dowladda Jabuuti ugu deeqday stationkii hore ee maaragtaan tareenka oo hadda laga guuray inuu noqdo national museum inuu noqdo oo halkaasi hawsheedii haddaba aan gacanta ku hayno qaybuu de kala yeelan doonaa oo waa loo samayn doonaa tareenka oo ah meeshii nolosha Jabuuti ay ka bilaabantay magaaladu ay ka dhisantay sector yaa loo xiri doonaa laakiin museumkii guudna isla halkaas ayuu noqonayaa waxa aan hadda u soconnaa oo iyadna aan daba joognaa sidii loo bilaabi lahaa dhismihii tiyaatarka oo anagoo haddaan nahay reer Jabuuti anagoo nafteeda ku tashanayna gacanna ka filayna saaxiibadayo iyo dowladaha walaalaha nahay in isaguna uu muddo kooban ku bilaabmo haddii la marka afartaas haddii ay noo xaqiiqowdo anaga waxaan aaminsanahay inay runtii wax weyn inaan qabanay waxaan kuugu daray waxaa jira machad la yidhaahdo machadka
farshaxanka ee Djibouti ama fanka ee Djibouti oo madaxweynuhu sameeyay 5 sano ka hor macadkaasi uu jira uu shaqeeyaa arday badanna way ka soo baxday oo tunta ama qalabka musiga ama se farshaxan oo wax sawirta ama se alifto oo curisa riwaayadaha marka macadkaasi waxa lagu bartaa dhammaan wixii fan la oran jiray ayaa lagu bartaa waana macad shahaado bixiyo oo wadani ah marka macadkaasina wuxuu raacsan yahay wasaaradda dhaqanka ayuu raacsan yahay shayga in marnaba la moogaanin ay tahay waxa weeyaan waxaynaan hore u aqoonin waxa weeyaan sida loo dhowro loona ilaaliyo xuquuqda maskaxda iyo curinta oo runtii ninkii ama gabay tiriyay ama riwaayad alifay ama sawir gacmeed qurux badan sameeyay ama buug qoray noocu doonta ha noqoto curintaasi curin oo dhan xaruntii lagu ilaalin lahaa ayaan sameynay oo iyadna noo hirgashay waxaa la yiraahdaa xafiiska Djibouti ee dhowrista xuquuqda maskaxda iyo wixii la xiriira yalada xafiiskaas uu furan yahay director general baa loo magacaabay xarun baa la dejiyay wuxuu ka shaqeeyaa diiwaangelinta xuquuqda maskaxda iyo sidii uu u matali lahaa aqoonyahan kasta oo xarunta iska diiwaangeliyay inuu maxkamadaha hortooda matalo xuquuq wixii ka maqana uu soo dhiciyo uu rido ayuu ka shaqeynayaa kaasina wuxuu raacsan yahay maartaanay wasaaradda dhaqanka ayuu raacsan yahay waana guul noo xaqiiqowday runtii labada sano ee u dambeysay dabcan waxa jirta maartaanay laantii la oranayay direction de la culture ama se maamulka dhaqanka oo ku shaqale horumarinta dhaqanka guud ahaan xusida maalmaha caalamiga ah ee dhaqan ahaan loo xuso sidii uu maartaanay dhaqanka suuban iyo wanaag uga hirgeli lahaa dhammaan laamaha wasaaradaha iyo hay'adaha iyo gobolada intaba ka shaqeysana waa is oo maartaanay madax banaanta waxa waxyaabo fara badan oo muhiim ah ka dhawaaqay oo runtii aan idinku hambalyeeyo arrinka koobireedka ama dhowrista xuquuqda waxaan jecelahay su'aasha labada tahaynan saddexaad aan ilaahay doonayna ku weydiiyo waxay tahay arrimaha iyaga laftooda awqaafta iyo diinta maxaad horumar ka sameyseen ee idinka qabsoon dhinacaas dabcan waa hay'ad dhaqan baa ahayd waxaan ka hadlayay haddii aan soo noqdo dhinaca diinta wasaaraddu waxay iska ahayd wasaarad madax bannaan oo iskayga u taagan wasaaradda arrimaha diinta iyo awqaafta ayay marka hore ahayd waa wax aad iyo aad u ballaaran waxay leedahay laamo kala duwan ayay leedahay oo aan oran karno waxa ku dhameystiran arkaantii islaamka ayaa ku dhameystiran tusaale ahaan waxay jirtaa idaaradda ama maamulka awqaafta oo ah maamul iskiisa oo madax bannaan oo leh gudoomiye iyo gole maamul idaaraddaas marka awqaafta waxa ay ka shaqeysaa waxa weeyaan horumarinta awqaaftaas oo dadku sawir qaldan ay ka haystaan oo ah miskiid in la dhiso oo tukaan yarna hoostiisa laga dhiso oo wax laga siiyo wardiyaha iyo imaamka ama dayacdarkiisa wax laga siiyo fikirka awqaaftu waa fikir ballaaran waa wax ay ummadda islaamka ay soo jirtay min nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaa maanta wixii ugu weyn ee lagu horumaray ee ummadda islaamka ay ku soo jirtay wuxuu ahaa khilaafadii islaamka ay ku soo shaqeynaysay wuxuu ahaa waqfi ayuu ahaa waqfigaasi qof muslimina u bixiya qof aan muslim ahayna xataa wuu bixiyaa waxaa waqfi loo sameeyaa caruurta maaragtaanay bilaa aabaha ama agoonta waxaa waqfi loo sameeyaa dadka waaweyn ee aan shaqaysan karin waxaa la gaadhay in waqfi loo sameeyo fardaha shaqayn kari waaye oo dadku intay dayacaan ay iska tuuraan ayay dadka qaar u waqfiyaan beero ay daaqaan oo bilaash ay ku daaqaan waxaa la sameeyaa waqfi wadooyinka maaragtaanay hareerahooga biyo la dhigo waa waqfi inaad dadka musaafiriinta ee ku go'doomay magaalooyinka aanay lacagna haysan hoteela ku galaan meelaha ay seexdaan loo sameeyo waa waqfi marka waqfigu
وحويان جميع أوجه الخير الله وحي خير دن إن حوله هرته نوع عطانا هالنقطة أي هرته وقف لا هذا مركه هي أدرس واحد كشقيسها هرمرنتا أوقافta أي كشقيسها وهي أد دقالة سمين كرتا هرمر سمين كرتا ودنك دسميس أنا كقيب قادن كرتا marka hay'adaasi runtii waxay imika samaysay guulo fara badan awqaaf fara badan oo hore u gabowday dhismaheega waxay samaysay maartaan heshiis la gashay baananka adduunka si loo horumariyo awqaafta Djibouti wax badanna way u qabsoomeen oo way socdaan waxa jira majaal kale ama dhinac kale oo ay ka shaqeyso awqaaftu wali awqaaftu ma ku jira dhinaca kale ka shaqeysa waxa weeyaan daryeelka iyo ka warhaynta qabuuraha يعني قبورها جيبوتي waxa gacanta ku haya maamulka waqafta ayaa gacanta ku haya marka idaaradaas waqafta qabuurahaas ay gacanta ku hayaan waxay u sameeyaan wax badan oo services ama maartaan adeeg fara badan ayay dadka uga qabtaan maanta ilaahay mahadi qabuurtu deer ayaa ku xiran waxa dhamaan lagu sameeyay tireegyo dhir ayaa maartaan lagu beeraa waxa la sameeyaa in iyagu ay shaqaale dhex dejiyeen oo xafiis ay ka dhex fureen qabuurta iyaga markaa qodo qabriga iyaga ayaa aasa maanta dadka reer Djibouti meydka way qaadaan iyagoo iska labisan way geeyaan ducada bay u joogaan wax weeyaan qalab ayaa u yaala lagu qodo ciid lagu rogo qof walba maaraytaan waxa laga qoraa database ayaa jira oo dhimashadii taariikhdiisii wuxuu dhintay magaciisii iyo wax oo dhan inuu haweenaha laga buuxiyo dabadeedna maartaan loo xisabira ayay duldhigaan oo ay ku qoran tahay bayaanaadkaas ay ku qoran yihiin kolka shaqadana waxa haysta runtii awqaafta si fudud kuma imanin waxa hawshaas lagu qabtay waa hawl gaar ah oo sanduuq ayaa loo sameeyay madaxweynuhu sameeyay shacabka reer Djibouti oo dhan wixii shaqeeya ayaa ka qayb gala oo qof walba mishaarkiisa ayaa laga gooyaa ma lacag laga gooyaa lacagtaas sanduuq lagu shubaa sanduuqaas ayaa markaa ka shaqeeya marka dadkii reer Djibouti oo dhan oo iskaashato ka noqda xagga aaska weeyaan marka sanduuqaas ayaa lagu shubaa lacagtaas waaxdaas ama indhaha laantaas waa laanta awqaafta oo arrimaha diinta markaan ka hadlayno waxa jirta wax kale oo aad iyo aad muhiim ah oo ah diiwaan zakaad wax la raahdo diiwaankaas kana hore wuxuu ahaa diiwaan awqaaf tanna waxa la raahdaa diiwaan zakaadku hawlaha uu qabto ee ugu muhiimsan waa labo ta koobaad sidii loo ururin lahaa zakada oo dadka hantida leh in wixii zaka ku waajibtay laga ururiyo dabadeedna fuqarada dib loogu celiyo sideedii sanfi ee Ilaahay ugu tala galay in la siiyo waxa kale oo marka wuxuu leeyahay gudoomiye guud iyo gole maamul oo golaha maamul uu ka kooban yahay ganacsatada iyo culumada diinka ayuu ka kooban yahay marka ganacsatadii lacagta iyagu iska qaadaya oo golahooga maamul ayaa maamulaya lacagtii culimaduna wixii sharci ayay maartaan u bayaamisaa ururka haweenka Djibouti ayaa ku jira marka dhammaan bulshada ayaa ku dhan marka xoolaha zakada sidii loo maamuli lahaa loo maareyn lahaa loo gaarsiin lahaa cidii oo xaq leeyahay ka shaqeeyaan dhinaca labada ka shaqeeyana waxa weeyaan كفالة الأيتام على رأه أقومها Djibouti sidii ay wax u baran lahaayeen oo ay nolosha maaraytaan ay uga qayb qaadan lahaayeen ugana loona daryeeli lahaa ayay ka shaqeeyaan qof kasta oo marka reer Djibouti laga soo bilaabo madaxweynaha ilaa ganacsatada yaryar waxa la baxshaa qaaraan joogta ah oo marka qof walba uu qoran yahay wasiir walba waxa ku qoran ama laba qof ama afar qof ama lix qof ayaa ku qoran ganacsatada sida ay kala xoog badan yihiin 50 qof baa jira 20 qof 10 qof ayaa marka nin walba intaas oo agoon ayuu isku qoraa marka lacagtaas bay ururiyaan sanduuq bay ku shubaan waxbarashada maartaan marka agoontaas ayay la socdaan iyo inay maartaan arratiraan oo ay ciidihii iyo xilliyada ramadaankii iyo ay ka warhayaan marka labada mashruuc ee waaweyn ayay diiwaan zakaadkuna ka shaqeeyaan iyo wixii kale ee soo raaca waxa jirta laan kale oo aad iyo aad muhiim u ah oo iyadna in laga warramo ay tahay waxa weeyaan majlis al-a'la waxa la ama oo conseil islamique waxaan raahno al-majlis al-a'la al-islami majlis al-a'la Djibouti waa hay'ad diineed
oo la odhan karo waa hay-adaha diinta hay-adda ugu sarreysa la odhan karo waxayna jamcisaa culimmada Jabuuti kuwooga ugu waaweyn ayay jamcisaa ama koobtaa waxa ay ka shaqeeyaanna waxa ugu weyn 3 arrimood arrinka koowaad waxa weeyaan in lagu sameeyo cilmi baaris lagu sameeyo mas'alad kasta oo diimeed oo timaada ayay u joogaan soo biirta labo inay maamulaan maareeyaan kana wada tashadaan wixii fatwo ah ee soo baxaysa marka si collective ah ayay u fatwoodaan waa gole maartaan fatwo waxay leeyihiin isku duwe laakiin sheekh iskiisa ana u fatwoonaya yiraahda ama oo mid kalena xagga kale ka fatwoodo oo ay isku dhac yimaado si looga maartaan badbaado waxaan u sameeynay golaha fatwo marka waxbay soo wada saaraan ay ku wada qanacsan yihiin oo ay ka doodeen marka golaha fatwo ayaa isna jira arrinka kale saddexaad ay ka shaqeeyaanna waxa weeyaan maktabadaha iyo aqoon faafinta ku salaysan masaajida marka miskiid walba inuu maktabad yar yeesho miskiid walba inuu kutubtii sharciga laga akhriyo hawlahaas ayuu ka shaqeeyaa majlisul acluhuna waxa kale oo qaban qaabiyaa majlisul acluhu shirar goboleed iyo shirar wadani ah oo ku saabsan diinta laga hadlayo oo culimada la isku keeno haddaan tusaale ahaan soo qaato waxa jira shir sanad walba ka dhaca Jabuuti oo geeska Afrika oo dhan la iskaga yimaado bisha May la iskaga yimaado oo hadda inagu soo fuule shirkaasi waxa la doortaa kolba team ayaa la doortaa ay mowduuc laga hadli doono sanad walba waxaana isku yimaada runtii culimo aad u fara badan oo ugu yaraan 9 dal iskaga timaada ayaa shirka ka qayb gasha majlis aclaha ayaa hawshaana u xil saaran oo nidaamiya saddexda laamood ee waaweyn dabcan waxa soo raaca maartaan maamulka arrimaha islaamka la yiraahdo ama se idaarada shu'uun islaamiya afeer muslimo idaaradaasina waxay ka shaqeysay oo arrimaha joogtada ah masaajida leh soonka leh xashka leh ayay iyaduna ay ka shaqeysaa oo waa maamul jira kolkaas runtii arrimaha islaamka aan ka shaqeyno intaas ayaa horta ugu waaweyn laakiin waa laama badan yihiin runtii si wanaagsan baad wasiirada wasaaradda iyo qaybaheeda kala duwan uga warantay iyo xidhiidhadaasi waxaad in badan ku howlanayd sidii loo soo noolin lahaa afka Soomaaliga iyo asaaskii akaademiyadda ka xukuumadda Jabuuti ahaan bal marka halkaasi waxaan dhawaana madaxweynaha Jabuuti oo dhagax dhigay akaademiyad goboleedkii afka Soomaaliga ee aga marka rajaynta leebad ka qabtan akaademiyadda iyo si jiritaankeeda iyo inay noqoto mid si fiican u shaqeysa haddii su-aashu ay tahay in akaademiyadda runtii waxaan anagu isleenahay waxaan aaminsanahay akaademiyaddu in loo baahna xilligeygiina ay timid dad badan waxay moodaan in imika la aasaasay sanadkan laakiin waxaa hortaba lagu dhawaaqay akaademiyadda abuuristeeda sanadkii 2012 durba 3 sano ka soo wareegtay waxaa lagaga dhawaaqay kulankii madaxweynayaasha Ismaaciil Cumar Geele Xasan Sheekh Maxamuud iyo Siilaanyo ay ku kulmeen qasriga weyn ee hotel Kempinski xilligaas oo la xusayay 40 guuradii qoraalka far Soomaaliya waxaa dadkaygii hawsha ku shaqo lahaa ee nidaaminaya shirka waxaan soo bandhignay oo markaa Somali Pen ahaa waxay soo bandhignay in la sameeyo lana helo akaademiyada af Soomaaliga u gaar ah maaha urur ka shaqeeya aqoonta maaha urur ka shaqeeya cilmi baaris kale waxa weeyaan aqoonta iyo cilmi baarista ku salaysan afka iyo horumarintiisa ayaa u baahan hay'ad gaar ah oo madax bannaan in loo sameeyo marka waagi halka lagaga dhawaaqay waxa ku xigay 6 bilood ka bacdi kulan aan iskugu nimidnay wasiirada dhaqanka afarta dal ee lagaga hadlo af Soomaaliga oo aan ku heshiinay in akaademiyadda la sameeyo dabadeed waxaan loo xil saaray guddi
kumeel gaar ah oo aqoon-yahana ah oo Jabuuti ku shiray sanadka bacdi jaamacadda Jabuuti ku dhex shiray iyagana markaa programka maanta aan ku socono dejiyay okay akaademiyadu way ay u noqonaysaa maxay u noqonaysaa akaademiyad goboleed waxa weeyaan af Soomaaliga markii la qorayay 40 sano horteed dawlad baa ka fikirtay iskayga ayay u tashatay iyada ayaa samaysatay waxayna ahayd meesha kaliya ee laga dhaqmo qoraalka af Soomaaliga haday noqoto waxbarasho haday noqoto media iyo haday noqoto xafiisyada Soomaaliya ahayd Soomaaliya markaa samaysatay laakiin maanta 40 sano ka bacdi waxa soo baxday inaan anagu reer Jabuuti u baahanahay af Soomaaliga oo u baahanahay af Canfariga oo qoran inaan adeegsanana ay tahay qolka afar Soomaali kale inaan qorana ma ah laakiin tii dawladda Soomaaliya ay samaysatay ayaan la leenahay oo afkayga waxa soo baxday Ethiopia oo u ogolaatay dadka Soomaaliyeed ee ku nool maaritaan Ethiopia dhexdeeda inay af Soomaali wax ku bartaan wax ku qortaan iskuna xukumaan oo maamulka kaga shaqeeyaan iyagana ma waa ku khasbayeen in af Soomaaliga isticmaalaan af kale ma samaysan karaan qolka maadaama maanta la wada leeyahay kuwa Kenya sidaa isla waxa marka laga maarmaan noqonaysa Somaliland iyadu maanta ba way isticmaashaa oo haday xafiis tahay iyo haday tahay media waa la adeegsadaa laakiin annaga iyo waan ku soconaa waan doonaynaa oo ilaa hadda annaga afka maamulku waa Faransiis laakiin waan jecelnahay afkayga inaan adeegsano oo noloshayada uu ka qayb ka noqdo qolka wixii wax la wada leeyahay oo Soomaali oo dhan xuduudda siyaasadeed halkeega hayska ba ahaato dalal kala duwan aan ku noolaana laakiin waxa ina mideynaya waa afka marnaba aan ka tanaasulayn marka afkayna ka wada shaqeynaa saasay qasab ku tahay akaademiyadaas waxay markaa jiri haddii loo helo dooni siyaasadeed oo dhab ah iyo dhaqaale iyo maalgelin haddii loo helo waayo aqoon-yahanka Soomaaliyeed ee afka jecel ee ka shaqeeyay way jiraan xarun iyo hoy ayay u baahnaayeen taana waxa siin kara dawladaha ayaa siin kara marka maanta madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle halkan lagu sameeyo fikradii ha lahaado sidii ay ahayd ayuu qaaday wuxuu yiri reer Soomaaliya warday halkan bay wixii aad ku qorteen afka halkii hadigo waxa weeyaan aqoonsi iyo qiritaan aanu qorayno inay dadkaasi waatan la yiraahdo maaritaan copyright hal la ilaaliyo halkii laga dhawaaqay halkii ninba ahayd idinkan idin soo wareejinay xilkii xarunta laakiin wala leena go'aankeygana wala leenahay dhamaanteen Soomaali oo dhan qolka waxay u baahan tahay iyaguna wax fiican bay sameeyeen oo xaruntii ayay ku deeqeen meeshii laga dhisi lahaa laakiin dhismaheeguna waa wada saaran yahay maalgelinteeduna waa wada saaran tahay waxa ka soo baxana waa Soomaali oo dhan baa wada leh سعادة الوزير واحد دوان تكتي دالك مريكان كا أو اللي هلا يحك جرني مدى يو خطرها إلا ذا يحك جرني مدى أنا مسلم كأنكو كهرناينه أدي إسلام عيبة سعيدة إن سيدي بيعرف كاسولي في العلم علماء كنا قن جبوتي شركة سيو قرب التصفح يحك جرني مدى لفتي والله هرتا أن شركة سي وحوها شر عالمية ما هي شر علماء جبوتي خصية وحوها شر عالمي أو أدونك إن كبدن لحدن ضل أيها إسكويمي وحنا لقوا ده هذا وحيا هيد حجرني ماذا أي عنفقه وهليه كل كائن فكرة عن لقوا كل الدوان هذا واحد نبقى عيلة ده مجرته لكن حتى إلى مد نقوم ويده وحنا من سنة هذا آمن ويده ديوان كديله يا ما وكل بعطينا يا أنت عابتي وأنت لكن أنا لك الدوان هذا آدم علوية تاسميت بهيد متى كلا الله بعدنا وحيد دونكي أو صور قلدني كلاي إن أي ضدك حجركي مسلمين إن دين الإسلام كو أي تهاي ماشي حجرني ماذا سلك واه أما أساس كواه فكرتها وذا قلدن أيه وحي ماشي اللي قدو ذي وفهمتي أدمرك قار كود دريمي سي إن أي مرايكن كقول هي مدحدا مرايكنكو iyo shacabka Mareykanku dadka ugu badan ee meediyaha qalday inay yihiin oo madaxweynuhu uu dhibaato ka mutay kala kulmay falceliski dadkiisa iyo madaxdiisa kale
madaxweyne Obama ayaa shirka furay wuxuuna ka hadlay inuu islaamku maaragtaana ahayn argagixiso inay diinta islaamku tahay diin nabadeed argagixisaduna ay tahay daahiro maaragtaana adduunka oo dhanba ka jirta oo diin walba iyo dhaqan walba ka iman karta dabci xumaaday inuu yahay ta kale laga hadlay waxay ahayd ama ha noqoto Mareykan oo maanta dalka adduunka ugu xoog badan ama ha noqoto dawlad kale inaanay dawladna iskayga uga adkaan karin xaq jirnimada ay waajib tahay in adduunka oo dhan iska kaashado saddex in xaq jirnimada lagaga guuleysan karin ka hortag military iyo dagaal oo kaliya ay habboon tahay inaa siyaabo fara badan looga hortago aqli celin wacyi gelin waxbarasho wada hadal iyo maaragtaana xiwaar waxaas ina horta iyo tacliinta oo maaragtaana hoos loogu fiirsado waxyaalahaas laga hortagi karaa anagu Djibouti ahaan runtii ilaahay baan aad iyo aad ugu mahadinaynaa malihin ururo xaq jir ah iyo argagixiso toona malihin dadka reer Djibouti-na dhaqan ahaan waa dad afaf iyo dhaqanno kala duwan leh oo ay caado u noqotay isla noolaasha iyo inay cidda kala aqbalaan dadka ka ra'yi duwan inaad la sheekaysan karto anagu af Afar baa lagu hadlaa Djibouti af Soomaali baa lagu hadlaa af Carabi baa lagu hadlaa Faransiis baa lagu hadlaa dad cadaan ah jooga kuwa madow ajnabi ah jooga marka waa meel ogol ama dadku ogol yihiin inay wada sheekaystaan oo ay kala af duwanaadaan oo ay kala diin duwanaadaan kolka dhibaatada horta reer Djibouti ma qabno ilaahay mahadi laakiin si guud maadaama aan ku naalno mandiqad shidmaysa oo dagaalo maaragtaana maskaxeed ay ka jiraan oo kuwa argagixisa ay ka jiraan oo dhan walba hareeraha ay nagaga wareegsan yihiin inaan foojignaano oo aan soo jeedno oo aan goor walba maaragtaana farta dhuunta ku hayno waa wax laga maarmaan ah culimadana guud ahaan waxaan sheegayaa culimada ummadda Soomaaliyeed mar walbana waan idhaahdaa meel walbana waan ka idhaahdaa xil weyn ayaa saaran xilka weyn ee saaran ama waxaan u jeedaa ama culimada Djibouti ha noqoto ama kuwa Soomaaliyeed oo meel kale jooga ha noqoto ama kuwa muslimiinta oo meel walba jooga ha noqdaan diinta islaamku ma aha diin cunfi ma aha waa diin nabadeed waa diin walaaltinimo waa diin isku soo dhawaansho waa diin qofka gaalka ah marka wax loo sheegayo oranaysa u dhibriya u fududeeya waa diin qofka muslimka ah ku amraysa inaanad aflagaadaynin inaad disha iska daay qofka kale muslimka ah inaad xataa eray xun ku tiraa sibabul muslimi fusuq wa qitaluhu kufr yani xadiista iyo aayadaha diinta ee ka waramaya qofka muslimka inaad dhibaatayso inaad bini aadan ku xadgudubto oo dishana aqalada ilaahay oo dumise inay tahay iska daa aadame inaad xayawaanka كل كبد رد فيه أجر يعني إن نولايصود وحطر تود بيهورا بصايات جنكو جلسة إن بصدير حده وضعون تدا يبيها ودي دنا نار تدكو جلسة دين الإسلام كوحنا بريس إن يكسر بحان ضد دقاقة وديجي عبء أو إن يوح لايان ما هنا أنا مرتان نفسين أو نفترض رالي كنا قرينين وعيب وين وين علماء الإسلام كعيب كتر مركها واحد لوجا فديا إن ندب لوجو نقطة آخر سكيني إن ندب وجو نقطنا كتب تاني إن ندب وجو نقطنا وإحنا عندك بريني إن ودادات ودب يجو شاكستان أو أي راتان وروحنا نتبينا إنه ما يسقى أبوري مس إنك أي راعسنين تاني أو كقلدان هذا يصير هاي وحافي عن إن علماء الإسلام مدرسة هي جامعة هي مساجد تتك وحكة برتاي إن يديب مراجعيان الفكر الإسلامي بصورة عامة سجود فكر كإسلام كا إن ديب لا يسكون نقضه لا إسنصح عابنا ما هتاسي أو دين تلوث عليه إسلام كي سمح جاها لوث عليه وقت أبيض يدوم هتصنت سعادة الوزير الدكتور آدم حسن آدم قبل دي واحد جلنا هنا كوديو فرينت على أدرس الشعب كرير جيبوتي كذا ولي تي في كقرار الشعب كرير جيبوتي يو وحن الشعب كرير جيبوتي وحن أقول لها
runtii waxaad haysataan madaxweyne daacad ah oo nin diineed ah oo dhaqanka iyo diintaba aad iyo aad ugu adag baa haysatiin waxaad haysatiin dal nabad ah waxaad haysatiin dowlad kobcaysa oo mar walba ay wax u biirayo waxaasoo dhan waxay u baahan yihiin ku fara adayg waxaad tihiin shicib isku dhafan oo isjecel oo isla nool oo is ogol mid walba midka kale wixiisa ku ogol yahay waxaasi waxa weeyaan hodanti iyo waxa dadka dheertihiin weeyaan kolka waxaan aaminsanahay haddii shicibkaas iyo hoggaankaas aan soo sheegay qiyaadadaas ay isku xidhmaan oo isla socdaan in guul la gaadhayo waxaan gabay baan tiriyey sanadkii 1999kii anoo arday ka ah jaamacadda marka gabaygaasi waxaan u soo diray madaxweynaha oo markaa la dooranayay waxaa ku jirtay aan xasuusanayaa ha yeeshee sarreeyo malaha yani waxay taasi suuro galaysaa markuu shacabku sawdka iyo sacabkiisa kula helo sees dhigaalkaba si u wada dhaqaaqdaan waxaan aaminsanahay ummad hogaankeyga iyo shacabkeyga aan isku duubnayn meel ma gaari doonto kolka inagoo isku duuban inaan higsano nolol tani ka wanaagsan oo kasii qurux badan oo caruurteena iyo mustaqbalkeena u sameeyno aad baa idin salaamay wassalaamu calaykum waa tahay daawadweelintaasi waxaan kusoo gabagabeynaynaa waraysigii gaarka ahaa ee xafiiskiisa kula yeelanay wasiirka wasaaradda dhaqanka diinta iyo awqaafta ee jamhuuriyadda jabuuti mudane aadan xasan aadan intaynu daawadayaal barnaamijkani mid lamida ku kulmi doono waa anigoo maxamed ciise aadana maxamed gaboose iyo bahda kale tv-ga nagala qayb qaadatay barnaamijkani oo idinkaga tegaya wakhtigu ha idin wacnaado meel walba oo muuqa iyagu idinka soo gaadhayo Thank you.